walaal waxaan ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saarto. bismillaahi raxmaani raxiim. waa mar kale iyo barnaamijyadeennii. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc kooban oo aynu ku dul istaagi doono wahsida iyo caajiska. aan ku bilowno su-aalo kala duwan oo dadku isweydiiyaan balse aan inta badan jawaabahooda ay isku wado maraan. kow, waa maxay wahsi? waa maxay caajis? maxay ku kala duwan yihiin ama maxaa farqiga u dhexeeya wahsi iyo caajis? haddii aan ku bilowno wahsidu waa daal maskaxeed ku dhaca dadka, kaasoo yareeya doonista iyo firfircoonida shaqsiga ah. caajisku waa daal jireed ku dhaca dadka, kaasoo keena waxqabad la-aan qofka oo doonaya inuu wax xaqiijiyo. caajisku darajo ahaan waa ka hooseeyaa wahsida. waa tamar darro ruuxi ah oo ku dhacda awoodda qofka. wahsi iyo caajis waa laba eray oo kala duwan dhawaaq ahaan iyo macno ahaanba, laakiin qoraallo badan oo aad ku arkayso labadan eray oo isku micno ah, qoraayaduna ay isticmaalayaan kolba kii carabkooda ku soo horeeya. ibnu xajar markuu kala saarayay labada eray waxa uu ku micneeyey sida tan: wahsi waa qofka oo waxba qaban kari waaya isaga oo awooddii iyo xooggii leh. caajisku waa qofka oo doonaya inuu wax qabto haddana aan awoodeyn. sheekh cayni eebbaha ka raali noqdee waxa uu ku sheegay sharaxa sunanu abi daa-uud markii uu sharxayay xadiiska ilaahow waxaan kaa magan geli caajiska iyo wahsiga. waxa uu ku macneeyey caajisku waa qofka oo awoodi waaya ficilada khayrka. wahsiduna waa qofka oo aan isku dayeyn waxa wanaagsan iyo rabitaanka qofka oo yaraada isaga oo wax suuragelin kara. sheekh maxamed ibnu saalix al-cutaymiin eebbaha ka raali noqdee waxa uu kala saaray labada eray sidan: wahsi waa qofka oo ka liita dhanka doonista. caajiskuna waa qofka oo ka liita awoodda jidhka. wahsi haddii aynu soo qaadano, wahsi waa mid ka mid ah xanuunada macnawiga ah ee faraha ba-an ku haya bulshaweynta caalamka, waxaana lagu sheegaa in dhammaan dadka laga helo dabeecaddan wahsida, laakiin lagu kala duwan yahay heerka uu gaarsiisan yahay. bini aadamku waa noole aad u raaxo jecel, sida oo kalena aad u horumar jecel. waa laba amuurood oo aad u kala durugsan. mahmaah Soomaaliyeed baa odhanaysa dhib dabadii bay dheefi jirtaa. halkaa waxaa inooga cad in dhibka, rafaadka, quus la-aanta ay tahay awoodda lagu gaadho guusha, raaxada iyo horumarka. waddadaas hareeraheeda waxaa daadsan oo buux dhaafiyey wahsi oo doonaysa inuu waqtiga kaa dilo, dabadeedna kuu horseedo fashil, guuldarro iyo mustaqbal madow. dadku waxa ay xidhiidh daciif ah oo raad gadasho ah ku dhex yeeshaan wahsida iyo samirka, iyaga oo maraya odhaahyada ay ka mid yihiin things come to those who wait, oo ah fursado waxay u yimaadaan kuwa suga. xigmaddan waxa ku cudurdaarta dadka jecel inay ka wehsadaan fursadahooda iyo howlahooda daruuriga ah. odhaahdana macno ahaan waa ay ka xeel dheer tahay sida loo adeegsaday. marka waxaa ku qarsoon samir, taasi oo micnaheedu yahay qofka dadaala laakiin aan niyad jebin, fursadana waqtigeeda ku sima ayaa fursadaha wanaagsan u yimaadaan.
samirka iyo wehsidu waa laba kala fog. samirka iyo wehsidu waa laba kala fog oo aan la isku xiriiri karin, waxaana sababta samirku guul ugu hogaamiyo qofka, wehsiduna dib u noqosho u horseedo. farqiga intaas la egna ma noqon karo mid wax la wadaajiyo oo barkulan leh. caadada wehsidu waa mid cadaadis badan soona noqnoqota. dhanka kale waxay aqoon-yahanada kasmo nafeedda ku takhasusay taxliiliyaan in dadka wehsida badani yihiin kuwa aan deganayn oo werwer iyo walaac u saaxiib ah, necabna welwel iyo walaac u saaxiib ah, neecawda raaxada nafsiyaduna ku yar tahay. noocyada wehsidu waxay dadka ugu dhacdaa laba siyaabo oo kala duwan, waxaana lagu soo koobi karaa laba nooc oo waaweyn, kuwaas oo kala ah: 1. wehsi saamaysa dabeecadda qofka. wehsida noocan ah waa mid aad u xun, wuxuuna ka dhigaa qofka mid markasta diida inuu ficil sameeyo, isaga oo isu qancinaya inay jirto caqabad hortaagan. tusaale ahaan, in qofka iska dhaadhiciyo inuu waqtigu ku yar yahay oo uusan howl qaban karin, ama naftiisu ka dhaadhiciyo oo uu cudurdaar uga dhigo in uusan awoodin inuu howshaa qabto, oo ay u baahan tahay awood iyo xirfad uusan isagu lahayn. dadka uu ku dhaco wehsiga noocaanihi inta badan waa dadka kalsoonida yar, markastana ku fashilma inay wax qabtaan, hase ahaatee markasta fashilkoodu sabab u sameeya. waxaa kaloo ka mid ah dabeecadaha wehsida inaad howl qorshayso, abaabusho, kadibna aad bilowdo, islamarkaana aad joojiso adoon helin faa'iidadii lagu rajaynayay ee la filayay inay ka soo baxdo, sababtoo ah xidhiidhka wehsi huwan adkaysi la-aan, dulqaad yari, dhib nacayb iyo raaxo jacayl. wehsiga noocan ah oo sababa khasaare maskax, maal iyo muruqba leh. uurbaarayaal cilmi baaris ku sameeyey xidhiidhka iyo saameynta ka dhexaysa dhaqaalaha iyo dabeecadda waxay ku taliyeen in aan la bilaabin howl haddii aan la dhammayn karin. wehsida labaad wehsi saamaysa go-aanka qofka. dadku uu ku dhaco wehsida noocan ah waxaa ka luma go-aanka, wayna ku adag tahay inay wax qabtaan. dadkani waxay aad ugu baqaan inay qaldamaan, waxayna raadiyaan mar walba inay helaan aalad jawi degan oo ay wax kasta saxaan ka hor inta ayna wax qabanin. taasina way ku adkaataa, kadib waxay ku kaliftaa inay noqdaan waxqabad la-aan. maxaa keena wehsida? rabitaanka nafta oo ah inay seexato, cunto, cabto oo aynan waxba qaban. waxaa raali geliya shaydaanka. heshiiska labadani wuxuu ku horseedaa nafta oo hoggaanka kuu qabata, maxaa yeelay naftu ma jecla rafaadka, shaqada, gaajada, hurdo la-aanta.